رقت عيناي شوقا ولطيبة ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي أصحابتك وحر يوتيوب channel نفط أورون. waxaan idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. maanta maxaan yahay ujeedin xafadan quruxda badan. gabdho badan ay ka codsadeen inay soo duubo guryaha Nairobi ku yaala ama gaaraan xafada Islii. marka waa kana qolkii ugu horeeya soo galna guriga. saas uu waasacsan yahay maasha Allah. kan waa 3 bedroom sida ay soo sheegaybo. 3 qol iyo fadhigiisa waa qolkan qolka u horeeyo oo iridka ku aadan waaye oo qolka martida ka dhiganaysid toiletmo. halkaana waa meeshii yarta qadada iyo qolkii fadhiga waa isku lagu kala habeeyay wax yar. halkaas daaqadana u jeeda fadhiga daaqad iridu leeyahay because balkoonka kuugu furan. viewgaas kadaalana waa u jeeda quruxda indhahaaga meel qurux badan ay ku dhacayaan view fiican oo qaba guriga maasha Allah. meesha waa kana balkoonka daarabtid waa habeesanay roogero qurux badan dhiganay iyo laba kuraas oo caadi ahayn qalabkii magaalada indhaha lay ka daawanay bisa ku dhahay. balkoonka dhinacan kalena jikadii ku furan. jikadii iyo waatana caadi ma ahan waasac waayo gurigana ku dhawaaweyn qurux badan oo ku qancinayo. meesha yarta bana waa ku karkay armaajooyinka kor iyo hoos hada lagama sheekeen karo ku dhaay caadi ma. meeshan yarta waa stoorkii oo jeeda raashinka ku xareysan lahayd. soo qolkana waa qolkii weynaa oo master bedroom ka ah. soo weyn yahay oo jeeda maasha Allah caadi ma ahan ku dhahay. musqushiisana wuu wataa oo ku gaar daaqadiisana waa tasaa quruxda. musqushi waatana guriga lama dhameystirin weli hadda ku socdaa dhismo. anigana decorate garan rabo insha Allah. soo sida u hagaajinana waa idin soo duubi doonaa maalintii aan soo degi rabno oo alaabta la soo dhigaayo haddii alla idmo sida qurxiyo iyo hadeertan sidoo yahay. hadda uu cusub iyo weli wax yar ka dhiman guriga insha Allah mar dhaw la furi rabaa. asxaab badan ay weydiiyeen gabdho badan oo weydiiyeen Nairobi guryaha ka waran ma weyn yihiin sidee u yaala Islii ka soo hadalay. marka waa kana insha Allah idin soo duubay. qofkii u baahan inaan ka soo hadlo qiimaheedana isu sheegi karaa. armaajadan ayaga qoslis wallahi ayaa ku dhaysay oo habeeyeen oo ku dhex dhooman kartaa ka waran. armaajada waa taas meel yar oo dhexe u sameeyano oo ku dhex dhooman markii maamada ku soo bursata camal ilmaha yararka ay ugu tala galeen midha. kana daaqadiisana maasha Allah guri kale ku dhex furantaa daaqada kale waxa magaalada ku furan. soo jeeda musqusha public dadka dhan ka dhaxeyso caadi ma ahan ku dhahay lagama sheekeen karo insha Allah. waa kana waxa waay qayb kale iridi laga soo galay waaye. qaybtan waxa waaye 4 qol iyo barsadiisa. gurigaanedkii hadda ay tusina waa 3 qol iyo fadhi. kana waa 4 qol iyo fadhi. waa kana qolka u horeeyo iridka ku yaala qolka martida macruurta ka dhigan kartid. saan u waasacsan yahay caadi ma ahan maasha Allah. waa sidii kii hore oo wax yar ka bedelan yahay sigana kulay waa arki doontaan haddii alla idmo. asxaab badan ay soo codsatay ka soo hadal guryaha Nairobi arabna noo soo duub qaabkii u yaalaan inaan aragno insha Allah ina ka bogatiin rajeena. gabdhaha jeclahay iyo ragaba inta dhan qofkii u baahan inuu wax ka ogaado wax waliba way soo wareys kartaa. wixii su'aal qabto comment down below insha Allah. commentiga ayuu soo gudbinaysiin. kan waa qolkooda sida idin tusay. let's go. qolkii labaad waa kana caadi ma ahan ku dhahay
maasha allah waa maasha allah sida loo dhisay waa loo hagar bixi gurigan walaa waa ka helay yaa dhag iyo dhalaal waa dhag iyo dhalaal caruurta kala degsanay armaajadiisa way yartaa ujeeda kan armaajadiina fura isku dayaaya atana armaajadiisana kale caruurta kuugu filnaanay markaad degsatay 2 cunug ama 3 cunug oo kaleeto haddii ay u baahan yihiin ama hal qof enough waaye. qolkan marka wuxuu leeyahay qaybtanito 2 qol oo master bedroom ah. qofka hadduu rabo inuu iska kareeyo iyo hadduu rabo inuu asiga dego waa qolkii saddexaad sida ujeedaanbo. qolkaana waa master bedroom inkasta uu xoogaa ka yaryahay kan kaleeta ka waasacsan waana arki doontaa insha allah mana yaro ujeedaan laakiin kan kale markii loo dhigo laakiin labada master bedroom mid ay aad waasax uga dhigeen midna xoogaa way yareeyeen okay laakiin waa kana armaajadiisa ujeedaan doo aleedmo meeshana waa suuligiisii yaraa bam kusoo dhawaada suuliga guriga wax yaraa ka dhig insha allah sida uu naqshadayeen kale waa arki doontiin marka soo qurxiyo ka bogasho wacan doo aleedmo. markana qolkii saddexaad dib jecli armaajada waxay ugu diray ayadana adeeg ma loo yeelin wixii lagu furi lahaa soo maaha anina inaan furaa rabo oo ka daba tago kumadiin yar birta alaabta la saarana qaybta korbaagadaha wax la rabto iskaga xareynay ee leedahay maasha allah waaye. atana armaajooyin waasac uu leeyahay guriga caadi ma ahan allaani dibadaniyaayey anaa bisla yaabo ka waramahe maasha allah. haddana waxaa idiin wadaa qolkii weynaa waaw ka warama qolkan hadda kow irid soo gashid musqushiya ka bilaabanaya. musqushiisa waatan asaas u dheer tahay u design garaysan tahay u qurux badan tahay waa kana qolkii maasha allah half lane laga tusay daaqadiisa iyo fiyuuga gadaalo uu leeyahay caadi maaha dhinaca qoraxda ku aadan yahay waaw aan ku dhaw waaw ana way kaas insha allah idin duubay armaajadii waatana hadda lagama sheekeyn karo insha allah marka soo hagaajiyeen aniga la idin tusin doono doo alla idmo pam soo hadsan waxaan u dhiman hal qol oo gaar ah iyo waxaan u dhiman fadhigii iyo jikadii iyo balkoonka samaha soo aadina insha allah kaman fiidiyaan mar hore sameeyay xitaa inkastoo aan lasoo daahay inaan soo geliyo asxaabta qaaliga insha allah idinkana waxaan idin rajeynayaa like commentiga aan la iska baqaylin ya inta sanaga dhiirigelinayno taa adigana wax makaa go-ay ma fahantay dhacle iskaga see waa qolkii afaraad sooray anaa farta isqaldi rabe kaas waa kii saddexaad kan waa kii labaad yow kaasna waa kii koowaad saddex kula been badaniya musqushin babliga waatana oo dadka dhan ka dhexeyso 3 qol fadhi 4 qol fadhi 2 qol fadhi 1 qol fadhi qofba intuu rabo oo maxal dhahaa ay karisanaysaa it depends on you adig ku xiran tahay waa kana fadhiga welcome ya lagama sheekeyn karo ku dhee caadi maahan qaybtaas daarabta qada dhignay daarab tv-ga dhignay insha allah adig kale sida u decorate gareynana waa idin tusi doonaa guriga marka soo hagaajino wax kale uu ku soo baxo laakiin hadda wala ma yareysto aad u qurux badan yahay maasha allah. waa kana fadhiga iridan dambana waa looga baxaa oo balkoonka ku dhex furan soo jikadiina dhinacan kale ku taala insha allah idina waa arkaysaan waatana jikada waaw jikadiisa waasac qurux hawo fiican ay haysataa ayadana maasha allah aan ku dhacno gasirka walaalkay waaye maanta dhan meesha iska marmaraaye inay iska soo horbixiyana le akana qaybta oo kuka agashanaysid maxaa la dhahaa nalkaagii stoorkiisii waa kana stoorero aad qurux badan u qabaa
waa keelaya ku dhehe waxaa rabtid ku xareyso nidaam iyo qurux caadi ma ahan insha Allah. waxaan noo dhiman hadda balkoonki somaha hadda la idmo waa kana sigana saana loo weyn yahay ka waranaya maasha Allah. xarigna waa ku dhagsi kartaa daarta dharka ku warne laakiin anaga insha Allah waa qurux sarabnaa nalkiisa uu leeyahay ujeediin qaybtaasna waa quruxsanayna qaybtan jikada yani loo deynaya hadda la idmo waa kaasa ka bogasho wacan insha Allah asxaabteyda. qofkii su'aal qabana commentiga ay igu soo qoro fiyoga gadaala oo balkoonkana waa kana kan caadi ma ahana ku dhan magaaladii dhan kor ka daawanay Nairobi soo dhawaada insha Allah. subscribe like comment waxaan naga baqeylana isla socod wanaagsan do alla idmo. هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن ينادينا لخير قد أتى رمضان ينادينا لخير قد أتى رمضان لجنات وروضات وحور عين